waan hayaa dadka Djibouti iiga imatay oo ay qortay safaaradda Djibouti oo nimka akhri doono oo ay yiraahdeen inta uu joogo maxaa dhadaa ninka Fahad wax wara ma helno waana laga xidhay wararkii oo waraaqadii oo qoran baa loo diray dawladda Djibouti wasaaradda arrimaha dibadda iyo mukhaabaraadka qaybta loo diray ma dhici karto dictatoriya Soomaaliya laano waa mujtamac qabali ah oo qabyaaladu ay ku xoog tahay dawladda marka qof dawladda qaadan karaa imika ahaan waa yar yahay ilaa Soomaalidu waxay sameysay wax dhaado 4.5 waxay dhaadeen kooxda 0.5kii male awoodda ay leeyihiin kooxada afarta reere hal laga dhigay kuwa nuska ah ayuu kamid yahay bay dhaadeen laakiin kuwii oo dhan ayuu ku xoog batay oo siyaasadii oo dhan uu kaga xoog batay nin wadaadon Fahad wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha ka dambeeyay waxaana kala shaqeeyay cadaalad waxaana gacanta ku lahaa ninka la yiraahdo ma salaad su'aashu waxa weeyaan min ayna laka hadi al-adilla waxbuu soo bandhigay laakiin wuxuu yiri adillada waxaan ku bandhigi doonaa meeshaas wuxuu yiri waa laba meelood imika koow waxaan u bandhigi doonaa meesha la yiraahdo amniga qowmiga ee wadanka labo maxkamadna hadii laga yeero ma diidayo mamnuuc maxkamadda loo diidi karo idan waxa weeyaan meeshaan oo ku bandhigi doonaa buri marka maxaa laga rabaa isagana waxaa laga rabaa adilla cad dawladda Soomaaliya oo gaarsiisay Djibouti Turkiga gaarsiisay amniga Fahad inay mas'uul ka yihiin Turkiga iyo Djibouti marka ninkii khadki waa ka baxay ma Abdullaahi Abdi laakiin Abdullaahi Abdi wuxuu hayaa sheekadii dhaxmartay inay imaaraadku imato inay qaadato in la sumeeyo sirooyaadkii la dhigay iyo in la dilo oo lagu dilo maartay hoteelada Djibouti kamid ah intaas oo dhani waxay sirooyaadkii la dhigay number 1 number 2 number 3 APC baahid maxaa fashiliyay ninka mukhaabaraadka Djibouti xakuma oo Xasan Saciid la yiraahdo waxaa fashiliyay ninka la yiraahdo Xasan Madow loo yaqaan waxaa fashiliyay wasaaradda arrimaha dibadda oo yadna ay warkii Soomaaliya warkii Turkiga u yimaadeen waxaa fashiliyay oo kaleeto dawladda Soomaaliya oo kor u qaaday oo tiri ninka mas'uuliyadiisa waxa mas'uulka iyo ka